waxayna ku xidhan tahay in saamayntaas laga hortago in sharciga wax laga bedelo waana ogaa doontaana maanta meel iyo qora xukuumadda 2 sano la soo dhaafay mushaarka askarta iyo shaqaalaha bixinaysay walow aynan bixi jirin waxyaabihii kale la xiriiray rarin koostigo aan xogaal u ahayn in 10 wasaaradood hal maalin korontadu ka wada go'day meel iyo qora maanta sanadkan 2019 aan ku jirno ma bixin karayso mushaarka shaqaalaha iyo hadda ma joognaa January haddaan nabad wada qabno wada joogno i weydiiyay warkaas January 2020 sanad kadib i weydiiyay ma bixi karayso sababtan saas oo waxay tahay kalsoonidii deeq-bixiyaasha adduunka ku qabtay way dhimanaysaa maantaan halkan ku aasna anu kolba kamid ma ahayn xildhibaanada ogolaaday oo codkayga waan ku diiday laakiin aqlabiyadii saasay ay go'aansadeen saameyn aad u culus ay ku yeelan doontaa saameyn dhaqaale xooggan ay ku yeelan doontaa horta dhaqankan sharcigaana dhaqan geli maayo oo aqalka sare u tagi doona xaggaana ku soo noqonaa waqti dheer ay qaadanaysaa sharcigan inuu saas ku dhaqan gala yacni balse waxaan idiin sheegayaa in keliyata waxaa ku filan adduunka directionka aan qaadanay oo ah inaan hanti dhowre madax bannaan aanan rabin oo aan rabno hanti dhowre hoos taga golaha wasiirada intaasaa ku filan marka adduunka ma aqbalayaan kalsoonida Soomaaliya adduunka ay ku qabeen way dhimatay maanta halkaana lagu aas waxaa ku soo helay sharcigan kale loo bixiyay horta sharci ma ahayn sharci ahaan marka laga fiiriyo dhanka legaalka ama sharciyadan ugu qaldana waayo sharci laguma buri karo xeer iyo sharci waxa weyn sharciga weyn sharci kale baa lagu buri karaa oo lagu bedeli karaa inta la soo proposal gareeyo habraac waxa jira marka loo maro shuruucda marka wax laga bedelayo looma maray يعني سيدي وقرنت تدركت ولا برية كقرية يعني وشرع ضمن لجو بدلي وحقوق دي مواطنين الصوماليين ميل والجو يشوفون لجو منه لو ونادنين ضد عن صومالي هين وحيان درها حكومة هذا جرت والله بدي السنة أي جرتي السنة كصوص عدا وسد حال حتى عن هالقف أو شغالة صومالية وقاندين إلا شغالة إن هل كيف فرصة ومدى الصوماليين ولي بأغنيهم كودي كيف يسأل هاين أي أقول داعان هذا قف كلو أجنبية qofkaas ajnabiga ah marka mushaarka uu qaadanayo 10 qofood ay ku filanta oo Soomaali ah waxa inta si dheer waxaas lacagta tirada badan oo naga qaadanayo wadanka Soomaali gali meeyay wuxuu u dirsanaa dalkiisa wuxuu shaqo uga abuuraha ku biila oo lacagtaas lagu kharash gareynaa dalkiisii hooy gadaal u dira marka darantii waxay ayaan darra laakiin waxa ka muuqday in waxay u ekeed wuxuu inay ahayn wax abaabulan oo markii runta loo hadlo wax weyn oo hadda laga qaban kara ma jirin waxa u abaabulan oo gudoonka hormuud yihiin oo xubno fara badan oo halkan jooga ay ma garanaysaa ay aad u kambeyn gareynayaan oo aha waxaana waxa ka dambeeyay soo abaabusha xukuumadda